صاحب waxaanu qaybtan ku eegi doonaa qodob ka duwan wararkii aanu baryahan aadka u soo duwayna ee ku saabsan dagaalka ka oogan bariga dhexe aanu ku eegaynaa sheeko aan ciwaan uga dhignay Soomaaliyay ku soo dhawow gumaysi cusub maxaadan ogeyn oo socda taasoo aanu ku soo qaadan doono qodob muhiim ah balse marka hore qadar idhaah waxa barnaamijkan hirgelisay makhaayadda Mandi Palace Restaurant oo marti sharafta ka dharjisa cunto muunad leh menus kala duwan iyo madal toolmoon aad inta kaga maqsuudaysid adigoo muta meesha ay ku taalo oo dabcan ciwaanka iyo telefoonkaba shaashada ka meelacsan karto aan ku bilowna Ciraaq waxay leedahay kaydka saliideed ee shanaad ee ugu ballaaran caalamka taasoo lagu qiyaaso 140 ilaa 145 bilyan oo fuusto taasoo ka dhigan 8% guud ahaan kaydka caagaaga caalamka oo idil iyo 17% kaydka dalalka bariga dhexe mid kamid ah ceelasha saliideed ee ugu hodansan uguna waaweyn dalkaasi waa ka lagu magacaabo Ceel Waali ama Majnuun Oil Field oo dhaca 60 kilomitir meel waqooyi kaga beegan magaalada Basra ee koonfurta Ciraaq waxaas ka sii waalan in dakhliga qaran ee saliidda ceelkan iyo ceelal kale oo lamid ah ka soo gali lahaa dalka Ciraaq uu gacanta ku hayo dalka Mareykanku hadda ogow Mareykanku soo ma saaro mana sifayo saliidaasi laakiin wuxuu maamulaa wax kasta oo sunuud ah oo Ciraaq ka soo gali lahaa taasoo saameyn weyn oo siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku yeelata sida Ciraaq u wajahayso danaheeda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah waana dabcan u madax banaaneen balka dhereg sheekada oo idil kadib duulaankii sharci darrada ahaa ee uu Mareykanku dalka ku ekeeyay 2003 waxa uu sameeyay qaab dhismeed maaliyadeed oo uu isagu fure iyo xire ka yahay marka ay timaado saliidda iyo gaaska dalkaasi isagoo bankiga kaydka federaalka Mareykanka ee loo yaqaan Federal Reserve xaruntiisa magaalada New York waa dabcan bankiga dhexe ee Mareykanka ka dhex sameeyay hay'ad maareysa dakhligaasi oo uu ugu wanqalay magaca US Development Fund in Iraq ama USDFI hadama aha Baghdad ee waa New York taasoo ka dhigan in dakhliga ugu weynaa ee qaranka Ciraaq la geeyay meel aan ahayn ciidda dalkaasi Ciraaq taasoo hadba in yar looga aqoolayo marka ay wax u baahdaan iyagoo marti ka ah hantidoodii qaran ogow mar kale saliidda isagu ma laha dalka soo saarayana ma aha laakiin xarunta iyo maamulkuba waa isaga Mareykanka ah waliba magaciisa ayaa ku jira magaca sanduuqa maareynaya waxa waliba markii dambe oo Ciraaq ixsaan yar loo sameeyay sanduuqa USDFI khasnad yar looga dhex furay bankiga dhexe ee Ciraaq yalkeeda waxa wax kasta oo Ciraaq qaadanayso sharciyeynaya bankiga dhexe ee Mareykanka iyo hanaanka maaliyadeed ee dalkaasi oo khidmado badan ka goosanaya marka isla lacagtoodii loo shubayo taasi waxay Mareykanka siinaysaa fursad halgacanley ah oo uu markii uu doono ku ceejiyo dhaqaalaha dalkaasi kaba sadarane aamin ma aha oo mararka qaar balaayiin dollar ayaa halka ay ka baxday la isweydiiyaa tusaale intii u dhaxaysay 2004 iyo 2007 waxa khasnada USDFI ku jirtay 9.1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah balse Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo maamulayay waxay meel ku sheegi waayeen 2.6 bilyan oo dollar oo lacagta ka tirsan waxaana ka dhigan tahay in lacag ku dhow 3 meelood oo meel lagu waayay 3 sano gudahood oo qura kaaga darane 6.5 bilyan oo soo hartay si liidata ayaa iyana loo maareeyay oo lacag kale ayaa la sii lunsaday qiyaas waxaagi oo xoog lagu leexsaday lagu canshuuray bisna la lunsaday balse sidii taayo aanay intaasi Ciraaq ugu filnay bahdil iyo baaba qaran kadib markii sidoo kale dalkaasi sida aad la socotaan lagu burburiyay duulaan ay ku dhinteen inta u dhaxaysa 600,000 ilaa 1 milyan oo Ciraaqiyiin ah oo Mareykanku khasnada ay leexsadeen u adeegsadeen inay siyaasad ahaan ugu sanduleeyaan Ciraaq tusaale 13 Janaayo ee sanadkan 2016 Washington waxay siyaasiyiinta Ciraaq ugu goodisay inay saarayso cunaqabateyn dhaqaale oo ay ka xayirayso dakhliga ka soo xarooda saliidooda haddii ay dawladda ay soo dhisayaan ku soo daraan siyaasiyiin la dhacsan ama isku wanaagsan yihiin dalka Iran sida afar sarkaal oo Ciraaqi u sheegeen wakaaladda wararka Reuters waxa inta dheer in dakhliga ugu weynaa ee Ciraaq uu maamulo Mareykanku ay si automatic ah dalka uga xirayso inuu saliidiisa ku iibiyo lacag aan ahayn tan dollarka Mareykanka amaba uu dhinac maro siyaasadda iyo hanaanka maaliyadeed ee dalka Mareykanka yani Ciraaq waa dal xor ah markii warqadda laga eego balse ku jira gumaysi maaliyadeed oo toos ah taasoo dabcan siyaasadiisana saameynaysa maadaama uu Mareykanku isa siiyay mudnaan aan dhigan lahayn oo uu ku saameeyo maaliyadda iyo danaha siyaasad dhuleed ee dalka Ciraaq isagoo faragelinaya wax kasta oo dalka ku saabsan min xitaa cidda kamid noqonaysa golaha wasiirada Ciraaq sida aad u jeedaan dalalka ay Ciraaq xiriir la yagleelayso ilaa sida ay badeecadeeda u iibinayso dabcan waa ceego iyo caqabad istiraatiiji ah oo cadcaday ah aanu ku celino Mareykanku ma laha saliidda xitaa isagu ma qodo mana sifeeyo
oo badiyaa waxaa hawsha haatan qabta sharikaad Chinese ah daabulkeeda iyo dhoofinteedana dheefi kama gasho sidoo kale isagu ma saxiixo qandaraasyada saliidda mana dejiyo mugga iyo qarada saliidda iyo gaaska la soo saarayo laakiin wuxuu kaliya halka u fadhiyaa wixii dakhli ah ee ka soo baxa xaalku waa soof baa la sheegay sin u dhac soor baa la sheegay sarakac yacni dhibka may dheeftaha waa si sahlan oo lagu maamulanayo khayraad dal dhani leeyahay iyadoo shaarku ku cad yahay waa dabcan wejiga uu leeyahay gumaysiga cusub kaaga darane Mareykanku arrinta marna kama qaloodo waliba waqti xaadirkan oo uu si daahfuran ugu dhawaaqay inuu yahay gumayste casri ah taasoo ka dhigan in Mareykanku sidaa ku haysto dakhliga saliidda Ciraaq laakiin ogow waxaa jira dal uu saliidii iyo dakhligiiba iskaga darsaday dalkaasina waa Venezuela oo ah dalka dunida oo idil ugu hodansan marka la eego kaydka saliidda dalkaasi ceegaaga oo 20% ka noqonaya guud ahaan saliidda dalalka caalamka marka la isu geeyo Venezuela tii ay tahay xor bisna waxa lagu qaaday weerar qorsheysan kadibna waxa laga qafaashay madaxweyne dalkaasi Nicolas Maduro warqaadka Global Witness ayaa waxa uu sheegay in Venezuela 9 sanadood ee soo aadan ee u dhaxaysa sanadkan ilaa 2035 laga soo saari doono saliid ku kacaysa 150 bilyan oo dollarka Mareykanka ah balse aan la hubin in lacagta ay wax ka heli doonto Venezuela maadaama uu Mareykanku gacanta ku hayo baleega qamoonyada qaran waliba waxaa jirta wareegto ka soo baxday aqalka cad 9 bisha Janaayo ee isla sanadkan taasoo ay ku qoran tahay u fiirsa hadalkan aqalka cadi waxa uu dakhliga saliidda Venezuela u arkaa inay tahay hanti ay leedahay dawladda Venezuela laakiin ay ka mas'uul tahay dawladda Mareykanku isla bisha Janaayo ee sanadkan Venezuela waxay ku dhawaaqday in Mareykanka ku wareejisay inta u dhaxaysa 30 ilaa 50 milyan oo fuusto oo saliid hore loo cunaqabateeyay ah taasoo badankeedu ku jirtay meel lagu kaydinayay amaba lagu qabsaday maraakiibta booyadaha ah ee saliidda qaada haddaba marka ay ka marayso maxay kula tahay in laga soo hoyn doono habhabta hanxumida iyo hiraan la'aanta madaxda Soomaalida oo waliba sanadihii dambe bilaabay inay u baxaan shirar aanay ciidana ku helinin oo ay la galayaan nidaamyo halis ah oo sidii maafiya u shaqeysta handadaad iyo rakaatana ku howlgala iyagoo daato si sahlan iskaga yiraahda naarkoy waxaan nahay dal istiraatiiji ah waaba waxa kaliya ee la isku qabsanayo casrigan maalin baan xitaa arkayay mid kamid ah madaxda Soomaalida oo Ingiriis jajaban oo warka diblomaasiyadeed luqad ahaan iyo farsamo ahaan ka hooseeya kula hadlaya gabar wariye ah isagoo doonaya inuu u sheego in haddii maalgashi lagu samaysto ay wax kasta bilaash ka dhigayaan hadda waa wariye laakiin wuxuu ka jawaab waayay su'aal ay gabadhaasi ku celisay oo ahayd maxaa xeerar ah oo arrintan idinkaga degsan waanu isaga oo qabaal xumadiisa qosool gariir ku qarinaya uu ku celinayay waa bilaash ilaan xitaa haddii aad bilaash wax ka dhigayso markasta waxa loo baahan yahay xeer la raaco waliba aanay ka hoos bixin in siyaasiyiinta Soomaalidu ay tobanaan shirkadood oo kala duwan kula jiraan heshiiso ay kamid yihiin shidaal baaris kalluumaysi qodaal macdaneed iyo wixii la mid ah oo leh kun dulduleel oo lagu dhici karo waana jirin cid maanta wax wacaal ah ka haysa sida tabxiisa loo dhisaalay ama danaha qaranka loogu ilaaliyay hadda waa duni la dhacayo dalal soo taagnaa oo isku xirnaa oo waliba istifaacayay sida Ciraaq iyo Venezuela dalba oo nasiibka qaar kamid ah xogta barnaamijkan waxaan ka soo xiganay hilinka Al Jazeera laantiisa af Ingiriisiga Maxamed Xaaji hadal Sami TV